soo dhaweynta qiimaha badan iyo martigelinta iyo qalbi wanaagga aan kala kulannay reer Khaatumo madaxdooda iyo shacabkooda iyo dawladooda intaba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waan idin mahad celinayaa intaa kadib daahma saarna nagama saarna duruufaha ka jira deegaankan Soomaaliyeed oo runtii iyo maamulkiisa oo aan ognahay inuu yahay maamulkii ugu da'da yaraa maamulada Soomaaliyeed ku soo biira oo ah maamul curdana duruuf adag inaad ku soo shaqayseen ilaa haddana aad ku shaqaysaan waa la soconnaa waa ogahay maanta oo runtii sidaad sheegtay aan ku joogno booqasho taariikhi ah magaalada Laascaano aniga iyo qayb ballaaran oo ka mid ah golaha xukuumadda dan qaran waxaa sharaf noo ah inaan dhagax dhigayno mashaariic isugu jira qaybo badan oo ka mid ah adeegga aasaasiga ee bulshada oo ay ka mid yihiin infrastructureska oo jidad ah ku jiraan oo ay ku jiraan caafimaadka ku jiro oo waxbarasho ku jirto oo ay ku jiraan adeegii kale ee dawladda hadday tahay immigrationka hadday tahay hay-addii soodma ee maaraynta musiibooyinka iyo la tacaalidda mashaakilaadka ka dhaca dalka iyo kuwo kaleba aad iyo aad bay farxad noogu tahay insha Allah inaan maanta dhagax dhignay waxaan sidaad sheegtay haddii alla idmo haddii la yidhaahdo aan ku dadaali doonaa in si dhaba loo fuliyo mashaariicdaas tani waa bilow waxayna iba fur u tahay hay-adihii federaalku inay si rasmi ah uga hawlgalaan Khaatumo maxaan ku dhahay stateka iyo dawladdan iyo maamulkan cusub saan sheegnay marka idinkana waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in dadka reer Khaatumo ay si weyn uga qayb qaataan fulinta mashaariicdaas muhiimka u ah ee ayaga anfacaysa haddii la yidhaahdo ubadkoodaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin